sanadkii 2018 waxaa noo qabsoomay howlo badan oo ay ka mid tahay dhiraynta maxkamadda. waxyaabaha kale ee sanadkan noo qabsoomay waxaa ka mid ah in dacwadii sanadkaa soo galay dhammaantood dhammaadeen marka laga reebo in yar. dacwadaha sanadkaa soo galay 2018 oo isugu jiray ciqaab madani iyo fulin waxay dhammaayeen 882 dacwadood, waxaana dhammaaday dacwadaha ciqaabti waxay ahaayeen 568 ciqaab ah, 223 madaniya iyo 91 fulina. dhammaan dacwadahaasi waqtigan imika aan kula hadlayo ee ah bishii labaad aakhirkeedii way dhammaadeen dhammaantood. maxkamadda gobolka Gabiley hadaan ka warbixin kooban ka siiyo waxaa ka howlgala 13 garsoore ayaa ka howlgala. maxkamaddu dhismo ahaan waxay kooban tahay 2 qol iyo hool, 2 xafiis iyo hool. waxaa kaloo maxkamadda nagala howlgala dhismaheeda qayb ahaan degan xafiiska xiraalinta oo aan gobolka Gabiley wax xafiis ku lahayn. taasi waxay ka mid tahay baahiyaha maxkamadda ka jira ee aanu isleenahay sanadka 2019 waxa laga qabto oo dhismayaal cusub la helo. waxa kaloo jira maxkamadda gobolka Gabiley sanadkii dhamaaday ee 2018 waxa soo galay dakhli ayaa soo galay. maxkamaddu waxay ka mid yihiin ilaha dakhliga ee qaranku ku xisaabtamo. waxyaabaha lacagta soo gashay dakhliga soo galay maxkamad gobolka Gabiley sanadkii dhamaaday 2018 waxay dhan tahay 340 milyan 794,207 shilin Somaliland. 340 milyan 794,207 shilin Somaliland kaliya. dollarkan waxa soo galay 8,612. dhammaan dakhligaasi wuxuu ka mid yahay dakhliyada maxkamadaha soo gala ee sida hufnaanta loo maamulo. maxkamadda gobolka Gabiley waxay hoos yimaada 5 degmo oo kala ah degmada Agabar, degmada Arabsiyo, degmada Kalabeed, degmada Alleybaday iyo degmada Wajaale. dhammaan degmooyinkaas waxaa kaliya oo maxkamad ay ku taala Wajaale ay maxkamad ku taala. inta kale oo degmo wax maxkamada ma laha, waana culays saaran maxkamad gobolka Gabiley. Wajaale waxa iyada loogu sameeyay culays gaar ah oo ay leedahay maadaama ay tahay goob xuduud ah oo kiisas ka dhacaanay kiis xasaasiya una badan kiisaska mukhaadaraadka. sidaa darteed waxa Wajaale loogu sameeyay maxkamadda ka howlgasha ee waaxda in maragyada iyo saldhigga aanay dhib ku noqon inay keenaan maxkamadda Gabiley, xarunta maxkamadda Gabiley inay maxbuuska iyo maraga iyo askariga ay keenaan. taasoo culays markii hore ku hayd si loo fududeeyo culayska ayaa maxkamad lagu sameeyay. maxkamaddaasi imika ku meel gaar ahaan waxay ka howlgashaa goob dhismo ah oo kira ah, laakiin wax dhismo ay maxkamaddaasi leedahay ma jiro. degmooyinka kale ee Agabar iyo Arabsiyo iyo Kalabeed iyo Alleybaday dhammaantood dacwadoodu waxay ku soo shumaan si toos ah u yimaadaan maxkamad gobolka Gabiley oo xarunteedu tahay Gabiley. sanadkan u dambeeyay dacwadaha ka yimi Wajaale ee ugu badnaa waxay ahaayeen dacwadaha mukhaadaraadka, kuwaas oo mukhaadaraadka ganacsiga mukhaadaraadka qodobka afraad ee xeer lambar 22/2002 kuwaas oo dhamaa 330 dacwadood. dhammaan dacwadaasi oo dhamaaday dhammaan khamriyadii lagu qabtay dadkaas oo farabadnaan la gubay. waxa kale oo sanadkan maxkamadda waxyaabaha ku soo kordhay sanadkii dhamaaday kiiskii reedkoodu kor u kacay. beertiisu kor u kacay waxa kamid ahaa kiiska diincayga oo noqday 26. taas ay u baahan tahay in wacyigelin toos ah la sameeyo si dadku ugu wantoobaan waxyaabaha qarankooda iyo diintooda lafjabka ku ah. waxyaabaha kale ee maxkamaddu dhameysay bishan waxa kamid ah sanadkii dhamaaday waxa kamid ah dacwadaha beeraha oo soo noqon jiray. dacwadaha beeruhu
aad bay ugu badan yihiin gobolka waa gobol beeraleeya dacwadaha khilaafka madaha beeruhuna aad buu badan yahay dacwadaha beeruhu isku jiraan dhowr nooc beertiyo guud ahaan dhax ahaan isku haysto beertiyo wajad ahaan isku haysto iyo beerta bootadeedii oo isku haysto dhammaan dacwadahaasi waxay soo afjarmeen si hufnaana ayuu soo afjarmeen qaarkood way dhamaadeen qaarkood maxkamadda racfaanka ka gudbeen qaarkoodna maxkamadda sare ayay sii marayaan baymaka xagga hadaan ka hadlo cabashooyinka dadweynaha maxkamaddu waa goob cabasho weyn maxkamaddu waxa maxkamadda yimaada qof xanuunsanaya laakiin waxa dili kara oo cadaad u baahan qofkaas wuxuu u baahan yahay in la dejiyo oo loo sheego in sharcigu wuxuu qabanayo oo sharcigu sareynta leeyahay markasta cabashooyinkaas dadweynaha ka yimaada waxay ka yimaadaan inta badan waxay ka yimaadaan cabashooyinka dadweynaha dhibanayaasha oo dadku waxay leeyihiin kiisaska hore laguma dhaqaajiyo qofka dadweynaha ee cabanaya kiisku muddo dheer uu qaadan karaa muddo gaaban uu qaadan karaa maragada inta dhageysanayay muddo dheeraan kartaa cabashada waxa loo baahan yahay ilaa maro sifo sharciya oo ugu horeyn loo tago gudoomiyaha maxkamadda gobolka ee ugu horeeya hadii maxkamadda kaaga wax qaban weydo maxkamadda racfaan ku gudbo hadii kale gudida iyo maxkamadda sare ama gudida cabashooyinka iyo gudida kormeerka loo tago iyo dabagalka cabashooyinkaasi waxay maraan dariiq bay maraan cabashooyinka dariiq baa looga cawdaa maxkamadaha midiyaha loogama cawdo cid kale loogama cawdo maxkamaddu way u madax bannaan tahay dacwadaheega way u madax bannaan tahay maxkamaddu go'aaneeda way u madax bannaan tahay go'aanka maxkamad ka soo baxa waxa looga caban karaa maxkamad ka sareysa laakiin dadka waxaan u sheegaynaa in aan midiya wax lagu qoro iyo wax saxaafad lagu qoro iyo wax Facebook lagu qoro midna aanay waxba u tarin ee qofka hadii go'aan ku dhaco uu duu ka cabanayo maxkamadda ka sareysa uu tago cabashooyinka waxa kamid ah qaar dadweynuhu ay ka cawdaan laamaha ee la shaqeynta leh maxkamadda sida booliska iyo xilaalinta anagu dadka waxaan ku dhiirigelinaa in xafiis kasta qofka madaxiisa ay cabashada ula tagaan ee aanay cabashada gidaarada la tagin ibriqna ku eedaamin si aanay dacwaduhu uga marin habaabin dacwadu ugu marhaabin xagga wada shaqeynta maxkamaddu waxay wada shaqeyn leedahay kow xafiiska xaraalinta oo ah soo oogihii dacwadaha waxa kale maxkamaddu wada shaqeyn leedahay taliska qaybta booliska waxa kale maxkamaddu wada shaqeyn leedahay ee saldhigyada oo ah meelaha ay ka soo baxaan dadka maxaabiista ah ee maxkamadda la horkeeno waxay maxkamaddu leedahay wada shaqeyn maamulka guud ahaan wada shaqeynta maxkamadda ay leedahay maamulka kala duwan ee gobolka waa wada shaqeyn toos ah oo fiican muddadan aad la joogo wixii cabashooyina ee la kala cabanayo madax iyo maamul meel la shaqeynaya cabasho muuyido cabashaas waxa loo marayaa dariiqa saxda maxkamadaha waxa looga cawdaa maxkamadda ka sareysa ayaa looga cawdaa maxkamadda ka sareysa wax ka qowda maxkamadda ka sareysa darajooyinka maxkamadaha waxa loo sameeyay jaranjarta waxa loo sameeyay in qofka meel uu ku dhamaanayo cabashadiisu ku dhamaanayso la sameeyo wada shaqeynta waxaan wada leenahay cuqaasha iyo salaadiinta gobolka cuqaasha iyo salaadiinta gobolka waxay laf dhabar ka yihiin dhamaystirka dacwadaha ugu badan ee dhaawacyada isu geysto tabeeraha madayaasha dadka waxa dhameeya dadka ahlul aqliga ee cuqaasha iyo salaadiinta dadkaasaan wixii saarana oo soo dhameystira kuwaas oo go'aanadooda noqdaan go'aano kama dambaysa xagga isku xidhnaanta maxkamaddu guud ahaan wax isku xidhnaanta maxkamaddu waxay guud ahaan toos u la xidhaa maxkamadda racfaanka gobolka Maroodijeex maadaama gobol Gabaley aan lahayn maxkamadda racfaan waxay hoos yimaadaa maxkamadda gobolka Maroodijeex maxkamadda racfaanka gobolka Maroodijeex maxkamadaasi waxay aad u leedahay wada shaqeyn toos ah maxkamad gobol degmo Gabaley oo isku jirta laba ikhtisaas maxkamad gobol iyo maxkamad degmo labada ikhtisaas waxay toos u hoos tagaan dacwadaha laga racfaan qaata maxkamadda racfaanka gobolka Maroodijeex maxkamadda racfaanku waxay timaadaa labadii bilood mar bay timaadaa ama bishii mar bay timaadaa kolba soo suurto gasho dacwadaha tiradooda iyo lamarkooda waxaanay si hufnaan u dhameystiraan dacwadaha dhamaantood sida maanta kale oo bishii 20 tahay bishii 2019 oo yimaadeen oo ay dhameystireen dhammaan wixii kiis racfaan laga soo qaatay ee ciqaabaha
maxkamadda waxay kala wada shaqeyn la leedahay maxkamadda sare waxay maxkamaddu wada shaqeyn la leedahay xafiiska xiraalinta heer gobol iyo heer degmoba wada shaqeyntaas oo ah wada shaqeyn toos ah maxkamadda waxaa jira baahiyaha maxkamadda yaalla waxa ugu horeeya dhismaha oo ku yar 13 garsoore dhismahoogu waad buu cuslaanaya inay galaan laba maqsin oo kaliya garsoorayaashaasi way iska sugaan sida macallimiintu xisaas iska sugaan bay iska sugaan in kiiska dhageystaan taas waxay culays u keentaa in kiiskii dib u dhac ku yimaado dib u dhacaasi loo daweeyo oo laguna hortago waxay maxkamaddu u baahan tahay in loo sameeyo dhismayaal xaqabtira dhammaan garsoorayaasha ka howlgala maxkamad gobol degmo Gabiley waxyaabaha maxkamadda sanadkan u qabsoomay waxa kamid ah maxkamaddu waxay sameysay sanadkan waxaan u qabsoomay in maxkamadda guud ahaan la dhireeyo oo marmar la dhigo marmarka oo la dhigay maqsinada guud ahaan iyo hoolka waxa kale sanadkan 2019 maxkamaddu u qorshaysan in marmarkii daarada la dhigo si loo dhameystiro loona sameeyo xayndaab deer ah oo maxkamadda lagu soo wareejiyo si looga maarmo baahiyaha noocaas oo dhan waxa maxkamadda cid kasto ay khusayso oo maxkamadda daneynaysa halkan ugu jeedinaya in baahiyaha maxkamadda si toos ah wax looga qabto waxaan toos ugu xirnaa ugu gudbinaa maxkamadda rafcaanka kolba baahiyaha maxkamadda ka jira xafiiska xaalinta oo ka howlgala isla xarunta maxkamadda gobolka Gabiley waxa dhismaha uu isagu leeyahay ma jirto dhismahaas maxkamadda ayaa leh maxkamadda ayaana ku howlgeli lahayd haddii xafiiska xaalinta xataa dhismo loo helo amba meel madax bannaan loo helo waxaan warbixinteedin ku soo gabagabeynayaa sareynta sharciga waa lama huraan waxaan dadweynaha u soo jeedinayaa gobol Gabiley ee sharciga markasta hoggaansan gobol Gabiley dadweynihiisu waxay ka duwan yihiin gobolada kale qof kasta cabashadiisa toos wuxuu leeyahay saldhigga waxaana maxkamaddu soo gaadhaa si toos ah taasoo maxkamaddu cabashadiisa ku go'aamiso kaasoo ku qanca dadweynahaas waxay aad ugu sharfan yihiin oo aad ugu amaanan yihiin in maxkamadda hawlahooga ay ku dhameystaan markay banaanka ku dhameyn waayaan waxa kaliya oo dadweynaha aan u soo jeedinayaa oo halkan ku soo gabagabeynaya warbixinteeda in cabashooyinkooga ay cabanayaan dariiqa saxda u maraan oo iska ilaaliyaan dadka afmeeshaarka ee maxkamadaha hortooda iyo banaanada aan maxkamadda soo gelin ee banaanada dadka shushaada ku akhriya ee beenta u sheega ee qareennada qaarkood sheegtaan iyagoo qareen ahayn oo ka haysan ruqsaddii qareennimo gudida ruqsad bixinta iyo anshax marinta qareennada waxaanu soo saarnay maxkamadahan in aan bishan saddexaad koodeeda laga bilaabo in aanu maxkamadda iman karin qareen aan sidin ruqsaddii qareennimo oo aan ka diiwaan gashanayn gudida ruqsad bixinta iyo anshax marinta qareennada aan ka diiwaan gashanayn taas waxay keenaysaa in qofka cabanaya aan uu helo qareen si toos ah ugu diiwaan gashan gudida anshax marinta iyo gudida anshax marinta ka diiwaan gashan iyo ruqsad bixinta qareennada taas oo ku ah waajib qareennada cadaaladdu waa dhinacyo badan ayay ka timaadaa qareennadu dhinac bay ka yihiin cadaaladda waxaani lafdhabar u yihiin inay u doodaan dadka aan qareennada helin iyo kuwa qareennada heli karayaba sida waxaan maxkamadda waxay naga caawiyaan qareennadu kiiska dilkoo kale ee tashiga u baahan iyo kiiska u baahan qareen saboolka kuwaasoo dhan way nala galaan waxaana wada shaqeyntaasi toos uga timaadaa xafiiska qareennada guud waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha ururka qareennada qareen Timo maxamuud Timo oo si wanaagsan noogala howlgala maxkamadan isagoo haddana xaruntiisu tahay Hargeysa waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan laamaha wasaaradda cadaaladda isduwaha gobolka loo soo magacaabay Master Shabeel oo iminka hawsha bilaabay aad baan ugu mahadnaqaynaa waanu soo dhaweynaynaa waanu mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh